maantay asxaabay waxaynu caawinaynaa nin lajina hadda ka hor aan Itoobiya isku aragnay ganacsigiisu xoogaa hoos u dhacay maantay kor ayaynu u qaadaynaa ganacsigiisa waxaan rabnaa inaynu u aruurino 3 milyan meelaha koonis soo gal gistiga saaxiib ka soo qabanaa la ii soo qabto xoyaa kan dada kan qoraya Abe Bashiir waxaan ahay wiil xanuunsan oo Abe Bashiir la dhaho hadda xanuunsantaa meelaha laad ooy xanuunka meelaha laad xanuun ugama baahnin meeshan xanuun ugama baahna anagu qof xanuunsan nama soo qabsan karo ooy hadda baynu sheegnay qof xanuunsan nama soo qabsan karo maxay dadka waa xanuunsanahay na soo qabole raalli ahaado qof xanuunsan nama soo qabsan karo tan maxay ahayd hooyo waan ahay hooyo waan baahanahay waan xanuunsanahay soo qabo ooy uma baahni meeshan qof xanuunsan ima soo qabsan karo gistigayga ma soo qabsan karo idhaafa adiga aabahan bay dhaafa in ma qani bacmadu waa la wareegaysa soo gal saaxiib la soo qabto yarkii waa kan asxaabay ninkan waa nin la jira hadda ka hor baan Itoobiya isku aragnay ganacsigiisa xoogaa hoos u dhacay nimankan maanta waa inaynu kor u qaadno caawino waka yaa diray ma sha Allah hawshu waa socotaa 3 milyan ay soo aruurinayna waa socotaa bismillaah 3 milyan waa horeen dhaafnay subhanallah ya 8 milyan bes marka bes ka dhahaya 10 milyan okay saaxib ilaahay intaadan ku iimaaniyo aadiyad ilaahay intaadan ku anfaco dadku wallahi aad ay ku jecel yihiin 3 milyan aan islahayn 10 milyan lagu geeyay aad baad u mahadsantiin asxaabay qisadaas anay ugu dhacday ya iyo hooyo kale qolaan u qorayno qol weyn ku jirto live ku jirta waxaan qorayno community waa mid aniga igu dhacday run ahaantii waxaan leeyahay dadka noocaada sidow dadka ka daaya qaababka qof xanuunsan waxa cad inaan la rabin laakiin ilaahay waa raba subxaanahu wa ta'aala aad baan